بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال ما أنت وحان إذن وذا فإذا آد أقالئة فإذا ذا سو xabiibkeena moxamed ah sala allahu calayhi wasalam nin saxaabadiisa ka mid ah oo aada u kurbaysan intuu arkay uu faa'iidadaas faraha uu ka saaray oona ku liibaanay. marka faa'iidada ayada ah saxaabigaa ku liibaanay keligiisa kuma ekaanine ummadda nabiyullaahi moxamed oo dhammaanteeda sala allahu calayhi wasalam ayay camimaysaa, shaksi ayay u camimaysaa oo arrintaa qusayso. saxaabigaa ku ahaa oo nabigu uu la kulmay isagoo kurbaysan. saxaabigaa waxaa la yidhahdaa mucaad binu jabal. saxaabigaa mucaad binu jabal ah wuxuu ka mid ahaa saxaabada aad iyo aadka u qaaliga ah nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam la noolay. saxaabigaa waxaa ku dhacday arrin nin yahuudi ah ayuu deen ka qaatay. ilaan saxaabada qaarkood waxba ma haysanin. nin aan islaam ahayn oo gaalo ah oo yahuudi ah ayuu deen ka qaatay. deentii wixii isaga bixin lahaa ayaa ku cuslaatay. wuxuu ahaa ninka mucaad binu jabal nin ku xiran madrasada nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam. xaggee aad nabiyullahi moxamed madrasadiisa? masaajidka. madrasadaas ayuu ku xirnaa. waxaa dhacday ninkii yahuudiga deentiisii inuu macnaha dhowr jeer uu weydiiyo mucaad binu jabal oo asagana markaas wuxuu ku gudo uusan haysanin. waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid ah ayaa soo martay oo maalin jumco ah. marka nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam mar kasta saxaabadiisa saasuu ishii u marin jiray. ninkii maqan iyo kii kale waa kala ogaan jiray. waxaa dhacday mucaad binu jabal jumco oo jumcooyinka ka mid ah masaajidka inuusan imaanin oo salaaddii jumcada ahayd uusan usoo xaadinin oo asagoo ka baqaayo ninkii amuu masaajidka dadka dhexdooda kugu qabsadaa. ilaan wax xishoonaya ma ahee. gurigiisuu ku haray. gurigiisa ayuu iska fadhiistay. jumcadii ma uusan tukanin. maalintii kale sabtiga ahayd ayaa nabiga uu la kulmay sala allahu calayhi wasalam. nabigaa weydiiyey wuxuu yidhi mucaadow, shalayta jumcada ma aanan kugu arkine maxaa ku qabsaday? ma xanuunsatay? say xaaladaad ahayd? mucaad wuxuu ku jawaabay, rasuulka ilaahayow, ma aanan xanuunsanin, laakiinse nin baa deen igu lahaa. dhowr jeerna waa i weydiiyey. deyntii ayadan waxaan ku gudan waayey. marka inuu meesha igu qabsada cabsideeda darteeda ayaan u haray buu yidhi. markaasuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam, mucaadow maku baraa buu yidhi, duco maku baraa buu yidhi. haddii deen oo lagugu leeyahay jabalka jabal uxud oo kale oo dahab ah wax la eg oo deen ah lagugu leeyahay oo ilaahay subxaanahu wa tacala kugu fududaynaya maku baraa buu yidhi ducadaas. maa sha allah. alla nasiib badnaayadana wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow, bala inaad ibarin iska dhaafe waa u baahana ibar buu yidhi. haa, wax yar oo addoonka uu igu leeyahay ayaan la dhuumanaya buu yidhi, gurigeyga aan ugu dhex dhuumanahaya. haddii jabalu uxud in la eg oo deena liigu leeyahay duco aan ku ducaysto oo ilaahay uu iga sakhiraya waa u baahana buu yidhi. markaasuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam, waxaad dhahdaa buu yidhi mucaadow, allaahumma yaa faarija alham wa yaa kaashifa adur wa yaa mujiiba dacwata almudariin raxmaana addunya waalaakhira wa raxiimahumaa
irxamnii fii qadaa'i daynii raxmatan tugniinii biha can raxmati man siwaak. allahu akbar. ducadaa xifdi walaalkayga muslimka ahow, walaashayda muslimada ahow. waxaan u malaynaa deyman badana dusha naga saaran, ya qaab aan ku bixinana waa laanahay. meeshii ilaahay aan bari lahayn waxaan leenahay war heblow waxaasaa liigu leeyahy xoogaa iga bixi, war waxaad deentaasaa la ii haystaa. may maanta ducadan haddaad maqasho, ducadaa aamin oo u fariiso, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaa furayaa wax ku saaran. muxuu dhahay marka nabiga? waxaad dhahdaa mucaadow, allaahumma yaa allahu allahayow, yaa faarija alhammi, murugta allaha faydow, wa yaa kaashifa adurri, dhibaatada allaha faydow, wa yaa mujiiba dacwata almudariin, kuwa la dhibaato geliyey baryadooda allaha ajiibow, raxmaana addunyaa waalaakhira, adduunye iyo aakhira allaha naxariista bixiyow. raxmaan, raxmaan lafdiga asaga ah waa lafdi aada u cajiib ah. raxmaan addunyaa waalaakhira, adduunye iyo aakhira allaha ummadiisa u naxariistow. wa raxiimahumaa, allaha si gooni u naxariistow. haddana taas waxa waay jamac waay raxmaan. raxiimna dadka khawaasta ah allah u naxariistow. irxamnii, allow ii naxariiso, fii qadaa'i daynii, deyntayda gudideeda ilaahu igu naxariiso. raxmatan naxariis, raxmadaasoo tugniinii aada igaga deeqayso, bihaa raxmadda, can raxmati man siwaaka, adiga wixii kaa soo haray raxmaddiisa ay iga deeqayso, raxmaddaa ilaahu ii naxariiso. waa duco cajiib ah, duco qaali ah wey, oo nabigu u habeeyey saxaabigaa jaliilka ah oo kurbaysnaa. kurbada saxaabigaa haysay maalintaas maanta inay ku haysaa laga yaabaa, aniga inay haysaa laga yaabaa. walaalayaal, ducodii ayada ahayd ayuu mucaad binu jabal xifdiyey radia allahu canhu wa ardaa. wuxuu yidhi mucaad binu jabal, waxaan daa'imi ducadii nabiyullaahi moxamed uu i siiyey, uu ii dheefiyey, uu i baray, ducadaasaan xifdiyey buu yidhi. allahu akbar. faqada allahu canii addayna buu yidhi, ilaahay deenkii wuu iga guday. ninkii deenkii ugu lahaa ducadiisaan ugu ducaysanay, ilaahay wax buu i siiyey, deenkiina waa iska bixiyey. maxaa yeelay aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala maxay ahayd? waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhraja. qofkii alla ka cabsada oo alla u toosnaada oo awaamirtiisa qaata oo wuxuu alla ka reebayna ka fogaada, yajcal lahu makhrajan. aayad kale maxay ahayd? yajcal lahu min amrihi yusra. amarkiisa ilahay waa u fududeeya. walaalayaal, naftayda itiinaba waa duco aan u baahneen oo aada iyo aad aan ugu baahneen. insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaa ilahay inuu nagu anfaco ducoda ayada ah, walaalaha muslimiinta ah oo arrintaas oo aada iyo aada ugu baahan oo deyminka ay saaran yihiin. insha allahu tacaala walaal gaarsii, adna sadaq ay kuu tahay. intaas ayaan kusoo gaabinayaa. hada wabillahi towfiiq, sala allahu wasalama calaa sayidina muxamed, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.